كيلاشدا دواعا كيلاشدا أبشوي ديغان كدور عدعيد كدالالي سيو انتينا داحان استوبين أقايق نقنال بناسدكيو دفتونا ياران دواعا كيلاشدا دواعا كيلاشدا أبشوي ديغان كدور أمير تياليو إنتي دمبي لغا داقي جيري halkii dhabigiyo lahayd galolkii dhalali jiray saxaro isku dhala rogto ummadda Soomaaliland ama dadweynaha waxaanu ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin Masaari ah oo halka ka dhoofayay shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabarida loo yaqaan taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo oo si qarsoodiye dalka uga dhoofinayay xayawaankaas muddo dheer baa booliisku daba socdo dad noocaas Masaari iyo noocyo kala duwan oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekedaha intay duurka ka soo guraan galabta gacanta lagu hayaa ninkii waa la xidhay sida ka muuqata shandadaha iyo maryahaas waanaga halka caaga ku gurnay ilaa 100 xabo oo maryihii laga furay lagu qariyay qaarna shandadaasay ku jiraan qaarna maryahaasay ku jiraan ciidanka booliisku isagoo ka war haya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwa waaweyn iyo kuwa xamaarataaba dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dambi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa galabta kuwa la soo qabtay waxaanu ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo iminka dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay oo cid kastoo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga ay qabtaan oo la dagaalamaan arrinta muddo dheer bay iska kaashanayeen ciidanka booliiska iyo wasaaradda deegaanka hadiya habeen waxa ka shira dhowr goor baa siminaar iyo shirar laga qabto wasiirka deegaanka iyo taliyaha ciidanka booliisku iminkana waa ku sii daba jirnaa waa sii wadaynaa dadweynaha taasaanu ka codsanaynaa inay nagu gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahaa dadka shaqajaanka ee xayawaankii dalka sidaa u ururinaya aan ilaa xamaarata ka tageyn ilaa xamaaratadii aan ka tageyn caawa waxaan halkan kala wareegaynaa ciidanka booliska annagoo ah wasaaradda deegaankii horumarinta reer miyiga iyadoo howlgal maanta lagu qabtay madaarka Cigaal International Airport nin Masaariya oo doonayay inuu si qarsoodiyo u dhoofiyo 200 oo nooca loo yaqaan xamaaratooyinka waa markii saddexaad waxa weeye ciidanka iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dadkan khayraadkeena dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaan xamaaratooyinka waxa weeye dalku sharci buu leeyahay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogtu wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogtu nooc kasto ay tahay dalka laga saaro runtii waxaan u mahad celinaynaa ciidanka booliska meel walay ku sugan yihiinba iyo ciidamada kala duwanba howlgallada kala duwan ee noocyada kala duwan ee duurjoogta had iyo habeen bay heeganka ugu jiraan sidii khayraadka dalku leeyahay loo badbaadin lahaa sidaad arkaysaan shandada waxa laga sarreysiiyey nacnac iyo buskud iyo chocolate iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisii uu qofku sitay runtii waxa weeye imika dad baa ugu jira waxa weeye saldhigyada oo 4 sanad lagu xukumay oo waxa weeye nooca loo yaqaan hareemacadka ka ganacsanay waxa weeye kuwanna waxay la mid yihiin kuwa ama ajaanib ha noqdaan ama muwaadiniin ha noqdaan
waxaa ciidanka iyo xukuumadda Somalilandba ka go'an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo cid walba goob walay ku sugan yihiinba waxa weeye gacan buuxda ayaa wax laga qabanaya